Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada xikmado cajiiba noloshaadana wax badan ka bedeli doona idanka Alle. Way adag tahay inaad jeclaato qof aad si fiican u wada taqaano, waayo waxa la jeclaadaba waa qofka intiisa qarsoon. Qofna ha u quudhin waxaad naftaada u quudhayn. Waxaa run ah in sida aad u dhaqanto lagula dhaqmayo, waxaanad ogaataa in waxa aad iska dhigto uma tahay. Ka fogow xaasidnimada, ha xisaabin waxaanad haysan, tiri oo arag inta aad haysato oo keliya. Sababaha ugu badan ee keena rabshadaha iyo dagaalka waxaa ka mid ah filimada iyo barnaamijyada TV-ga ee rabshadaha iyo fowdada. Wax kasta oo matalaad ah run maaha ee ka feejignow khayaaliga. Qalbigu waxa uu og yahay wax uusan ku dhawaaqin carabku, dhaguhuna aysan maqlin. Adiguna waa inaad ogaataa wax carabkaagu ku dhawaaqayo, dhagtaaduna maqlayso. Waxa aad ku dadaashaa inaad bixiso hadyadaha cimriga dheer leh, halkii aad casho ama sharaab qof uga qaadi lahayd. Uga iibi shay sida shaadh, toob, saacad, qalin iyo wixii la mid ah. Haddii aad ilmo yar hadyad siinayso, sii wax mustaqbalkiisa wax tara, sida inaad ka bixiso lacagta waxbarashada ama inaad geyso dugsi fiican oo aad u soo doortay. Ha isku dayin inaad dhegaysato sir, ha akhriyin warqadaha iyo dokumentiyada dadka kale. Isha ha ku xadin wax cid kala haysato. Dadka ilbaxa ahi waxa ay daneeyaan ilaalinta danahooda gaarka ah. Iska jir inaad eegto lambar taleefan qof kula fadhiya u soo dhacay ama fariin loo soo diray. Sidoo kale ha baadhin sawirada ku jira taleefan qof kale iyo wixii la mid ah. Iska ilaali fadwalnimada, sida waa imise mushaharkaagu, imise ayaad gaarigan ama gurigan ku kiraysatay ama aad ku iibsatay. Taleefankan ma adigaa leh, imise ayuu ninkaagu biil kuu siiyaa. Waxaa laga yaabaa in su'aalaha noocan ahi ay qofka diiqad geliyaan. Waa inaynu barannaa dhowrista arrimaha qofka kale. Ka waran haddii uu qofku isku sawiro haddii uu qabanayo shay danta guud ah, sida geed uu beerayo, dhiig uu ugu deeqay dad u baahan, ama sadaqad uu bixiyay. Waynu ognahay Allah subxaanahu wa tacaala aanu u baahnayn in loo muujiyo wanaagga aad fashay. Bani aadamka waxaa lagu yaqaanaa damac badni, danaystanimo. Waxaa u caado ah in haddii hawl loo diro uu isweydiiyo maxaad ka faa'iidaysaa ama maxaa dan ah kugu jira. Miyaanad dareemin in shaqo kasta oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray dadka inuu u ballan qaaday abaalmarin? Isbar dabeecadda ah cid kasta oo hawl kuu fulisa ama dan kuu qabata inaad u abaalguddo. Adiguna waajibka aad qabanayso abaal aadamaha ka sugin. Waxaan rajaynayaa inaad tallaabooyinkan raaci doonto. Intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago maanta. Haddii aad ka heshay muuqaalka, ku qabo like, lana wadaag asxaabta aad is leedahay wuu anfacayaa muuqaalkan. Sidoo kale ka mid noqo walaalaha ku xiran channel-ka. Waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyoga.